waayahay waxaynu u soo gudubnay cashirkeennii saddexaad ee habdhiskeennii coordination aan ku jirnay hore uga soo hadalnay laba qaybood ee kala ahaa nervous system iyo endocrine system. hadda waxaynu ka hadlaynaa xaaladda la yidhaahdo homeostasis iyo feedback dheelitirka qaabka isu dheelitirka jirkeenna sidaan ku baran doono cashirkani markuu dhammaado ardaygu wuxuu awood u yeelanayaa inuu qeexo the term ereyga homeostasis waxa uu yahay iyo sidoo kale ereyga la yidhaahdo feedback. wuxuu kaloo sharaxaad ka bixin doonaa uu fahmi doonaa habka uu u dhacayo homeostasiska marka ay isbeddel ku dhaco temperatureka ama heerkulka jirkeenna. wuxuu kaloo ogaan doonaa processka la yidhaahdo negative feedback annagoo u kala saari doona labo negative iyo positive. waayahay homeostasisku waa muxuu yahay haddaan qeexno ereyga waa maxay homeostasis is the maintenance waa joogteynta la joogteynaya of a constant internal environment in jirkeenna isbeddelka ka dhacay in la joogteeyo oo sidiisa lagu celiyo. tusaale heerkulka qofka bini'aadanka jirkiisu waa 37 degree 37 degree celsius ama centigrade ayaa heerkulka haddii uu kor uga kaco ilaa iyo 40 degree ama uu hoos uga dhaco ilaa iyo 35 degree labadaba xaaladdan laguma haye waxaa dhacayo in la soo celiyo halkiisa lagu soo celiyo ama markuu hoos u dhacana in kor loo soo qaado oo halkiisa u dhaco. xaaladdaasi markay dhacaysa ayaa la yiraahdaa homeostasis isu dheelitirid in la isku dheelitiro. the word ereyga homeostasis is made up wuxuu ka samaysan yahay two Greek words laba erey oo asalkoodu yahay Greek oo maxay yihiin labada erey homeo oo macnaheedu tahay same isku mid and status oo macnaheedu tahay state wax taagan oo not change isbedeleen. haddaba isku qabo homeostasis waa not change xaalad aan isbedelayn jirka in sidiisa lagu soo celiyo. ereyga feedback markaan ka hadlayno aynu feedback sheegnana waa maxay is a process waa hab that allows ogolaanayda body jirka to sense inuu dareemo change isbeddelka dhacay internal condition xaaladda gudaha waxa ku dhacay kadibna aan respond to them kadibna laga falceliyo. yacni feedback wixii imaaday jirka soo galay in laga falceliyo ayay noqonaysaa feedback. haddaba feedbacku waa laba nooc waxaa jira two types of feedback mid la yidhaahdo negative feedback iyo mid la yidhaahdo positive feedback. negative feedback haddaan ka hadalno waa marka heerkulka jirkeena sidaan hadda sharxaynay oo kor u kaco kadibna dib loo soo celiyo waa negative feedback. oo maxaa dhacay lama fasixin inuu heerkulka iska sii socdo ama inuu hoos u sii dhaco lama ogolaan dib ayaa loo celiyey sidaa daraaddeed waa negative feedback. regulation of blood sugar sokorta markii qofka kacday ee la soo daayay insulin hormone hoos ayay u soo riday ma aysan sii wadin inay kor u sii kacdo sidaas daraaddeedna laguma daanin ee sokorta hoos u dhacdee mar kale waxaa imaanaya hormoonka la yidhahdo glucagon dib ayuu kor ugu celinayaa. habka noocaas markay dhacaysana waxaa la yidhahdaa negative feedback. positive feedback isagu waa midka marka uu dhacayo tusaale ahaan child birth marka ilmaha la dhalayo ama ay labor foosha lagu jiro waxaa la soo daayaa hormoon la yidhaahdo oxytocin. oxytocin hormone wuxuu ka qayb qaataa contraction of the uterus in minka ama ilmagaleenka derbiyadiisu ay contraction sameeyaan si ilmaha yar ay u soo baxaan baby-gii uga soo baxo oo ilmihii loo dhalo. marka ay dhacdo marka isbeddelkaasi positive inay socoto childbirthka waan u baahannahay saa daraaddeed waa positive feedback oo ma jirto wax dib looga soo celinayo. sidoo kale blood clotting markuu dhiigga xinjiroobayo blood clottingku inay socoto waa loo baahan yahay oo dib dambe wax looga soo celinayo male ilaa ay ka baaba'do waxaana la yidhaahdaa positive feedback. labadaas ayaa loo kala qaybiyaa negative and positive. haddaba feedbackska aan sheegaynay sidee bay u shaqeeyaan aynu soo qaadano negative feedback. tusaale waxaan soo qaadanaynaa normal body temperature heerkulka qofka bini'aadanka caadiga isagoo ah oo 37 degree centigrade ku jira ayaa waxaa dhacday rise in temperature inuu heerkulku kaco. markuu heerkulku kor u kaco arrintaas sidaa laguma daanayo waa la dareemayaa feedback ayaa dhacayo respond waa la saxayaa blood vesselska jirkeena xididada dhiigga qaadaya dilate way kala baxayaan dilation ayaa dhacaya way weynaanayaan oo maxaa loo dan leeyahay si dhidid uu soo baxo heat badan loo lumiyo
maxaa yeelay heerkulkii jirka kacay jirkeena wuxuu sameeyay heerkulkaas la rabaa in hoos loo dhigo saas daraadeed blood vesselsku widens way ballaaranayaan arrintaasina waxay keenaysaa sweat did begins inuu bilowdo markaasina waxaa dhacaya in la saxay fall ama drop waxa hoos u dhacayo temperature maxaana lagu soo celiyay falaarta fiiri normal body temperature heerkulka caadiga ah ee jirka ee lagu soo celiyay xaaladaasi markay dhacdo waa markuu heerkulka kor u kacay maxaa la sameeyay hoos ayaa loo soo celiyay mar labaad halka eeg waxaa dhici karta in body temperature keenu heerkulkan uu hoos u dhaco oo qabow badan aan galno ay xaaladii heerkulka jirka ee hoos uga dhacay 37 iyaduna si ayaa lagu fasaxaya may correction ayaa la sameeynaya dib ayaa loo saxayaa oo blood vesselski markii hore widening ahaa saysan isaga bixin heat aysan u lumin waxay sameyn doonaan constrict way isku soo ururayaan blood vesselska narrow ay noqonayaan kuwa ciriiriya si aysan heat u bixin kadibna waxa bilaabanayo muscleska in la gubo heat murakeedka wuxuu ka sanaa fatiska in la gubo shifrin sidoo qofka inuu bilaabo gariir shifrinka markay dhacaan kadib heerkul ayuu qofka herayaa maxaa dhacaya rise in temperature in kor loo qaado oo lagu celiyo heerkulkiisi caadiga ahaa in uu ku noqdo habkaasina waxaynu ku baranay negative feedbacka aynu ku sheegnay habka heerkulka jirka bini'aadamku uu yahay cashirkeeni saddexaad ee chapterkeena halkaas ayuu inoogu dhan yahay chapterkii coordinationka aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته